kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa shabakada Heega News ku soo dhawaada akhbaaraadka ugu waaweyn Soomaaliya caalamka. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo weerar culus ku qaaday madaxda maamulka Hiirshabelle. Gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo maanta shir jireed ku qabtay beledweyne ayaa weerar afka ku qaaday madaxda sare ee dowlad goboleedka Hiirshabelle. Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday ay ka jiraan deegaanada maamulkaasi isla markaana laga gaabiyay in wax laga qabto. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxda sare ee maamulka Hiirshabelle ay ku fashilmeen arrimaha ammaanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ayaana hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay godoomisay labada magaalo ee Jowhar iyo Beledweyne. Dabageed ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay joogaan meel wax ka yar 5 kiiloomitir u jirta Beledweyne taasina ay halis ku tahay amniga. waa nasiib daro in xaalad amni daro intaas leeg ee Hiirshabelle ka jirto madaxda Hiirshabelle ayna ka aamusan. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo muddooyinkii dambe ay sii xoogeysanayeen dhibaatooyinka amni ee ka jira gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Inta badan Al-Shabaab ayaana ku xogan goboladaasi ayagoo weeraro jidgal ah ee ka fulisa wadooyinka muhiimka ah sida midda dheer ee xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar. khilaaf xoogan ayaa ka taagan qaabka loo soo xulaya xubnaha Ahlusunna ee laga siiyay baarlamaanka Galmudug. waxaa maalmaha soo socda la filayaa in lagu dhawaaqo liiska xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee Galmudug, waxaana inta badan la xiriiriyay odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug. baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaana ka kooban 89 xildhibaan, waxaana 20 kamid la siiyay kooxda Ahlusunna halka 69 xildhibaan kalena ay soo xili doonaan odayaasha dhaqanka ee metelaya beelaha 12 ah ee dega Galmudug. kooxda Ahlusunna ayaa dhinacyada ku mideysan waxa ay ka soo jeedaan qaar kamid ah beelaha dega Galmudug, waxaana jira beelo wax ku leh baarlamaanka Galmudug sidoo kale aan qayb ka ahayn kooxda Ahlusunna. hogaanka Ahlusunna iyo qaybaha kale ee kooxdaasi ka kooban ayaa u badan hal meel oo kamid ah beelaha dega Galmudug, waxaana sidoo kale jira beelo yaryar oo dad ugu jiraan Ahlusunna inkastoo aysan ahayn kuwa badan ama saameyn ku dhaxleh kooxdaasi. beelaha iyo jufooyinka qaar ayaa ka diidan in xubnaha ugu soo aadaya baarlamaanka Galmudug wax laga siiyo, waxa ayna beelaha qaar ay ku doodayaan inaysan qayb ka ahayn kooxdaasi halka kuwa kalena ay sheegayaan in qofka ay rabaan iyagu keensanayaan. odayaasha saxiixaya beelaha qaar ayaa lagu qasbayaa in qaar kamid ah xubnaha beeshooda ay ka imaan doonaan kooxda Ahlusunna eena wax tala ah iyo tusaalaba ay ku leheen cidda kooxdaasi ka dhiganayso xildhibaanada beeshooda ee ku leh Galmudug. khilaafkan ka taagan qaabka loo soo xulaya xildhibaanada Ahlusunna laga siiyay baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa laga cabsi qabaa in dib u dhac u keento ku dhawaaqista liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug. ugu dambeyntiina kooxda Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay weerar ay ku qaadeen xero ku taala Kenya. dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar habeen dheelmad ah waxay ku qaadeen xero ku taala duleedka degmada Mandheera, halkaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan militariga Kenya iyo shaqaale dawladeed. war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in dagaal muddo kooban socday kadib kula wareegeen xeradii ay weerar ku qaadeen kadib markii halkaas iskaga carareen ciidamada Kenyaanka ahaa ee joogay halkaasi. mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen xero ku taala duleedka degmada Mandheera ee gobolka NFD waxaa ugu suurta gashay in ay la wareegaan gacan ku haynta xerada iyo dhammaan wixii yaalay, waxaa lagu yiri war ka soo baxay Al-Shabaab. dagaalyahanada Al-Shabaab ayaana marar badan weeraro xoogan ka fuliyay gudaha dalka Kenya. ciidamada Kenya ayayna ku adkaatay in ay ka hor tagaan weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan qaybo kamid ah gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. gudahaan warkii aad ka daawanaysan shabakada Heega News waa naga intaas. daawada haddii aad ku cusubtahay janaalkana subscribe, like na share video.